reer bani israa'iil baa ka mid ah 40 sannadood waxay cunayeen almanna wasalwa xad cunto bini aadan cuno oo dhan ay ku dhan tahay baa samada uga imanaysay bilaa tacab nabi ciise calayhi salaam qoomkiisii waa kuwii ku yidhi waid qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryam hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min alsamaa qaala ittaquu allaha in kuntum muuminiin qaaluu nuriidu an naakula minha watadma'ina quluubana wanaclama an qad sadaqtana wanakuuna calayha min ashaahidiin waxay yidhahdeen ma karaysaa inaad adigu rabbiga aad noo weydiisid oo samada la nooga keena maaragtaane xeedhaasoo ay ku dhan tahay cuntadii bini aadan u baahnaayuu cunayey markaasuu ku yidhi ilaahay ka yaaba haddaad iimaan leedihiin hadalka ha ku hadline ilaahay ka baqa markaasay yidhahdeen nuriidu an na'kula minha waxaan ku weydiinaynaa wax kale maahee waxaan rabnaa inaan cibaadada aan u bambaxno oon xeedhana cuntada aan ka cunno qalbiga iyo iimaankuna noogu xasilu noogu ziyaado inaad run noo sheegayso oo risaaladaadu ay xaq tahayna aan garanno waa mucjizo weeyaan oo kugu sii sadaqno ya maragna aan ka noqono inaad tahay nebi la soo diray oo warka uu sheegayo uu yahay war saxa adna ilaahay buu baryay markaas 3 maalmood buu soomay baa la yidhi mixraabka ayuu galay mixraabka ilaahay buu baryay siduu u alla baryay baa la yidhi garkiisii baa laabtiisa ku dhegay baa la yidhi nabi ciise calayhi salaam maalintii afraad markuu reer bani israa'iil iskugu yeedhay ayuu ilaahay baryay xeedh ayaa samada laga soo dejiyey bayna khamaamatayn laba daruurood dhexdooda taalla oo mara cadna maaragtaane mandiil masar mara cadna la duldhigay ayaa samada ka soo degtay kullamaa uu nebi ciise uu duceeyu ooyaba way soo dhowaataa leanna hortiisii baa ilaahay dhigay markaasuu nebi ciise calayhi salaam wuxuu ka qaaday markaa maradii buu ka qaaday cuntadii bini aadan uu cunayay oo dhan ayaa halkaa ku dhammaystiran oo waxba kama maqna baa la yidhi markaasuu ku yidhi haya kulu kaalaya cuna buu ku yidhi waa kane laa na'kulu bay ku yidhahdeen xataa ta'kula cuni mayna ilaa adu aad ka cuntid mooyaane markaa buu yidhi anigu ma dalbin anu waan garanayo waan yaqiinsanahay ilaahay inuu iquudinayo inuu ilaahay siduu doono bini aadanka uu ku quudin karaa waan yaqiinsano waan ku kalsoonahay nebinimadeedana anu waan isku kalsoonahay diintanan inila imadan xaq inay tahayna waan ku kalsoonahay ininkaa iga dalbe mucjizadaase oo ininkaan aniguna inii dalbe kaalaya cuna buu ku yidhi markaasay yidhaahdeen cuni mayno waa ka baqeen bale way cabsadeen waa xeedh intay la eg tahay maaha intan waxay la eg tahay markii keliyaba baa la yidhi hee 7,000 oo qof baa hareeraha intay ka fadhiisato birraaxa weliba ay u fadhiistaan intay cunaan bay ka kacayeen baa la yidhi 7,000 oo qof eedan markaasuu yidhi haddaad ininku cuni weydeen aqaladiina ku noqdo oo qof allii qofkii niga jiranaayo xanuun u hayay soo kaxeeya buu ku yidhi dadka xanuunsan wax walba waa lagu dayaa moogta iyo kii way ka baqeen laakiin kuwii xanuunsanaa bay u yeedheen baryahan dambaa markii jamaacaadka ay dacwaddu ay ziyaaday ilaahay camalkii uu dhaqaajiyey yaad arkaysaa nimanka ganacsatada mid baa kuu keenaya mid qurbaha ku soo kululaaday mid qaadkii ku kululaaday mid shaqala'aantii ku kululaaday markaas warbalkan kaxee marka adu maxaad u raaci weyday anu mashquul baana isaga kaxeeyaa soo hagaage sidaas oo kale maa'idadii nebi ciise calayhi salaam dadkii caafimaadka qaba way ka baqeen markii la yidhi warbal kuway niga buka un keena haddana nin walba ula ordo uu keenay baa la yidhi deedna markaasuu nebi ciise calayhi salaam dadkii meesha la iskugu keenay baa la yidhi qof walba waxaa la yidhi kii bukay markuu cuntadii uu ka baday meeshii uu ka bukay baa ilaahay caafimaad ka siiyey kii indhaha lahaa indhihii baa u furmay kii dhagaha lahaa dhagihii baa u furmay kii maaragtaane lugiga gacan baktida gacantii lugtii baa u dhaqaaqday kii walla maskaxdii baa u soo noqoto u fayuubaaday markay arkeen aayaddaas ay yidhahdeen haddaan cunaynaa markaasuu nebi ciise ku yidhi shuruud baad ku cunaysaan shuruuddaas waa maxay calooshiinnu intay qaadi karto unbaad cunaysaan wax ziyaadaa ku guri maysaan shardiga labaad waxa weeyaan weelal iyo kiishashitood hoosta ku soo qaadataan cuntadaad gurani maysaan oo xagga dambe dhigani maysaan haddii aad khiyaanada la timaadaan taynigu dhacdo waad ka sheekayn doontaan buu ku yidhi ma bini aadan baa laga karis dabamaris kiishash bay soo qaateen baa la yidhi
واسكا ايغانو نبي عيسى وي كو غران markiiba waxa la waxay xeedu cajiib ku ahayd 7,000 oo qof baa markiiba dul fadhiisanaysi way ka kacaan azumad markii lagu yeero ee aqalka dadka lagu azumaday uu yar yaraado qaar baa meel la fadhiisiyaa Soomaa wala shaqaladii hore ay ku cuntay ma la dul fadhiisin mise laga rafici ya waa laga qaadi wala cusub baa loogu keenay waxa la xeedan laga ma qaadayn inta kuwani kolkay kuwani ka kacaan inta ay sii jeedaan ee kuwa kale ay soo badilayaan ayaa Ilaahay sideedii ku soo celiyaa ilaa aayad waxaniye laga ma taaban bay ku hortoodba way cunaan dadna markay qishkii khiyaanadii ma bini aadam baa beenaya khiyaano iyo qish ay bilaabeen عقوبة كل عذاب لا يدو إلهي وحوك دقة داير يا خنازير بإلهي كدقة مركا إلهي أرزاق قد مركا بالنسينا يوم قناع سكني إلهي نكوكو أرزاقها مودي لأقو سبب بدن بإلهي كوكو أرزاقي كرا قرآن كا إلهي كوكو أرزاقي كرا قال يربى إلهي كوكو أرزاقي كرا تلقفات السبع إلهي كوكو أرزاقي كرا دعاء إلهي بردب إلهي باهد هذا كو دبولي كرا إحسان ورالك عدو سميسيبا إلهي باهي بدن أديك كوكو دبولي كرا مركا كسبغا حلاشا سيدي سينا نغشقي سنة والدين وعبادتنا إن أمريسو دينتنا إن أمريسا وإلهي عز وجل أيا قرآن كي نغو أمرو يري هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا رزقه رزقين معها رزقي 70 إنسان رزق محل إرادة ووحا حل كان لما ريع عوشا اللي قليل إلى رزق waxa adiga ku soo galay baa waa dakhli weyn waa dakhli waa wixii ku soo galay weeyaan laakiin arsaaqad waxa la yiraahdaa baa la yiri waa waxa bini aadamka hungurigiisa mari calooshiisa gaadha dakhliga waxa laga yaabaa ka gaariga ku masaxaya kula leh ka kabaha ku baalasheynaya kula leh waashmaanka aqalka ku ilaalinaya kula leh ka neefka baadiyaha ka soo qaadaya ee xerada keenaya xoolihiisi adiga u haya shaaqiyada guriga kaaga shaqeynaysa jaariyada lacagteedii adiga u haya waayo bini aadamka inta la akoon ma wada furan karaan marka adiga u furay wixii oo dhan ada u wada haya adu waxa isleeyahay ninkii maalqabeenka ahaa baan ahay batroga milyoneerka ahaa laakiin waxa laga yaabaa 200 oo kun oo qof inaad xoolahooga Ilaahay adiga kuugu dhibado ilaalinaysid tacbu ma dadka dheerta raaxa ma dheeri cunto ma dheeri dadka maalqabeenada iyo dadka fuqarada midkeen cunto cun badan arkay cunto cun badan fadiirka wax walba iska cunaysa corona waaga dhawata adduunka la sheegayo dadka ugu cabsi badan ay haayeen laba qolada kursi ku fadhida madaxda iyo qolada lacag yar haystay koonkooda wax ugu jiraan labada qolo cabsoonaysa ilaa imika waa u fiirsado masaajidda labada qolo ay ku tukadaan meelaha qaarkood afka la xiran yahay faqiirka gidaarka jiifa muxuu ka biiqbal sheeg ma corona ka biiqay wala corona ka baqa wala taa'un bu ka baqa wala habad bu ka baqa ورانيجي بابا غاز داعي بكل هذا كورونا عنوني بكورونا لا فهم marka ilaahay abiyada isaga bini aadamka kala fadilo ogaada adu tacab kiba ku saaran ganacsado dadka la xooloogi baad waxay soo xisaabisa adu oo ka xisaabanayna lacag aad ku siiso adu marka waa inaad fahamtaa war arsaaqadan ilaahay baa qaybiyo inaan kasbi xalaal ka shaqeysano waa diinteeda ay farayso waa cibaado kow inaan ummadda u adeegan waliba uga shaqeynaa waa inaad tiraado marka arsaaqada ilaahay baa bixiyo kow aaminsanow maharadan waa sababtii kaliya oo ummaddan wax ku taraya iyo reerahayga iyo ehelkayga oo nabigu wakiilaha masaarifta reerkaaga aad siinayso kolay noqotana buu nabigu yiri ajar iyo sadaqa lagaaga qoraa saddexda markuu kasbigu yeesho cibaado noqon xalaal waa inuu ahaado madmadu ku jirin kasbiga dhexdiisa ilaahay waa inaan lagu caasin oo daacada ilaahayna lagu jabin lab saddex kalsoonidaadu yeelan dukaankan ahaanine waa inuu qalbigaaga ku tacalluqsanaado ilaahay nin ganacsada ah ya badeecadii uu soo rartay baa la sheego la yiri markabkii badeecadu ay ku saarnayd uu degay markaasuu alxamdulillaah toddoba cisho kadib baa lagu yidhi markabkaagii ma ahayn markabkaagii dekaduu soo galo galabtuu soo galaya markaasuu alxamdulillaah markaasaa lagu yidhi labadaa alxamdulilah ee tiri bal noo macnee
maalintii hore la ii sheegay leeyahay masiiba ku dhacday xoolahaagii oo markabkaagii uu degay qalbigayga fiiriyay buu qalbigayga wax isbedel kuma dhicin buu qalbiga aanan isbedelin baan ilaahay ugu mahdiyay buu waxaan arkay buu qalbigayga oo aan ku tacalluqsanin badaacadayda iyo xoolahayga waxaan arkay qalbigayga oo ku tacalluqsan ilaahay oo qalbiga yaqiintii iyo kalsoonidii ku jirtay baa markiiba ilaahay soo igu tiri awal walin ilaahay baad haysataa marka qalbiga saliimka ayaan ilaahay ugu mahdiyay buu hadda markaad ii sheegteen ilaahay baan ugu mahdiyo de ilaaha nicmo xoolahayga ii soo badbaadiyay baa uyaan ugu mahadinayaa buu nicmada ii keenay marka muuminku waa caynka waxaan aad haysato yuuna qalbigaagu ku tacalluqmine waa ina qalbigaagu ku tacalluqma mar walba ilaahay xaqiisa ta kale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam saddex jeer buu nabigu dhaartay ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بالنبي يقول صدح جار صلى الله عليه وسلم صدح جار بالنبي يقول دارته صدح جار إلهي من كل دارته صدح إلهي قيامها الله اللي ما يبو النبي يقول إلا حريص لنا إلهي وحركو أيق مايو دنبنا لغا قادم مايو دنبنا لغا دافي مايو ولهم عذاب أليم بالنبي يقول ولي بكواسي هي عذاب درن بيليهم والنبي يقول عذاب درن بيليهم صدح جر من النبي يقول صدح جر إلهي وكل دارته صدق علي أبو ذر الغفاري أيها خابوا وخسروا منهم يا رسول الله كواسي ويهوجين ويخسارين النبي الله أيهين مرقاب النبي يقول المسبل وأنك مرديس كبر يا خيلاء يحرقوا درادة قرآن تقول فيها كبر درت المرضى قرآن تقول فيها مدوكاسو النبي يقول لأن الكبر جاي أسكله الكبرياء لله العز إزاري والكبرياء ردائي عز جنبا إلى حيد وقائجي وقنتجيجي والكبرياء ردائي كبر كنا وقائجي با إلى حيد لبدا نك يقول ضوضبا إلى حيد وانعذابي با إلى حيد مرجع نك كبر دراد المرد يسكران تقول فيها طريقة كو حرقودا كاسي ومسبل بنبي يقول كوا إلى حيد أنا جاي بكمل يا حيد يا المنان نك دتك أو قلت شكته قلت شكته دو إحسان سميي أفكا كوير هذا هذا ولا ورنيه أنا وانيجي صونيك إحسان كعين كي يكون سميي ما دي اللودي ورنيه وانيجي مالنتا وانيجي بدأ عدا كوسيسي ما دي اللودي ورمالنتا كع فد وانيجي أنيجي ما كوفي ما دي اللودي ورصونيجي مركز مقالة سوق شانو كعن قبتين ما دي اللودي والفرس قارنا ويبكدر درانا وحيد هذا كان أنا قف قد جيب ولمد هذا اللي بيندي صوبه كان أنا قف كده جيبه وقف هذا المود أنا قف كده جيبه مد كلا كسي دروي حري أنا سميه بقول كان وده هذا سميه عند هذا وفيقي لا إله إلا الله إحسان ومد أسميه مركز قف ولا هلك مسلم قاعد واحترسه بديل سجها هكسوجين بإنه أبال كوس عليه هكسوجين marka horaad wax u qabanaysaa laga yiriba la nuriidu minkum jazaan wala shukura ku shaqay xabad daymisay ilaahay dartigu daymi waxbaad u sii hormarisay ilaahay dartigu u sii hormari maalin baad wax la qabatay ilaahay dartigu wax u la qabo ergaad u noqoto meel baad ka ergeysay ilaahay dartigu ugu ergey ninka wanaagi ni sameeyay buu nabigu waxaad ugu abal celisaan maxay jazaakallahu khair maxaa ku weyn markaas هذا وحبا سيسي كسوقات كل شيء بات سيسي كون كيمو مالين كلا كسيي وحا كفضل بدن كون كمرقات سينيسي إنا الأتسيس إلهي درتي وتقول هذا هذا وسونا وكوكو دعيوت كدون تينو كوير هذا جزاك الله خير لماذا؟ لأن أبالك إلهي وكسين يو أيا كقيمة بدل كنسو كوسو علينا يو مركا تابو نبي قلنا للربا مركز مركا بطن لقا قد يقول لقا يري قالت شيكتها النقون واي قالت شيكتها وإلهي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي سلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قالت شيكتها وإلهي إلهي بكون قالت شيكا كرا إلهي أم بأبدونك كوير هذا أنا كو أبوري أنا كو أرزاقي أنا أرقك سيي أنا مغلك سيي أنا أولادك قدقي
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إلهي بقولك كل شيء خلق لكم ما في الأرض جميعا سخر لكم ما في السماء بشر باتاي أدوك ولالك مركز وحوق بنيسو أبا لنا إساق وكوع ليها كسوغين تاسوا دغن كددك كلا إليهم بلين قال لا تاكو توا معاملة قال لا تاس وحبان كو قبتي وحي قبو وحبان كو إلى وحيده وانكو إرقية إي إرقية وانكو أماهي إي أماهي ويقرب جوكسن وكو قرب جوكسن مي مسلم كو عينكا ماها مسلم كو وحويان مركا ولالك أن وحوق بنا يبا كان وحكا السوغيا إساق ماها وإلهي بنا وحكا السوغيا يا وحكا السوغيا إلهي marka manaan lama ogolo inaad noqoto ka saddexaad buu nabigu waa kii almunfiqu silcatahu bilxalif alkaadib buu nabigu waa ninka badeecada uu iibinayo dhaar beena ku iibiyo buu rasuulku yidhi koorkan inaad saasiinaysaa $13 wixii ga dhan wallahi aniga $9 buu iigu jooga $10 buu iigu joogaayo $2 baan dul dhigtay wallahi maxaa keenay meesha markaa waxau sheegayna waa been dhaarna uu ku daray welibana tijaaradaadi intaa baaba kharibaysa ba ugu muaamalada xun eed ku dartay baa xalaashaadi kharibaysa marka waa inaad noqotaa qof badeecadu iibinayo run ku iibinaya war waxaan soo siistay iska daa maxamed ugu sheegba war aniga intaaba iigu joogtaa intaaba siinaya adeer intaana waan kaa siin karaa haddaan ku cajabi waayana ardullaahi waasica weeyaan hor u soco suuqu u buuxaye hadduu qofku badeecadu iibinayo uu been ku iibiyo waxa marka dambe keeni doonta ma taqaanaa inuu marka dambe uu ku dhaco uu noqdo qof xaasida oo walaalkiisa dariskiisa dukaankiisa dariska inuu waxba la ogolaan waayaba